warbixintan oo sidaan si lamid ah loo daabacay dabayaqadii sanadkii 2014 ayaa sanadkan haddana mar kale la soo daabacay iyadoo lagu soo korriyay madax ku cusub xukunka iyo siyaasadda caalamka. qaar ka mid ah warbaahinta ka faaloota mushaaraadka iyo nolosha dadka caanka ah ee dunida ayaa dhowaan baahiyey warbixin ku saabsan mushaaraadka bilaha ay u qaataan qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka. sida warbixintu ay tilmaamaysaa, farqi aad u weyn ayaa u dhexeeya mushaaraadka ay qaataan madaxda adduunka. boqoradda Ingiriiska iyo madaxweynaha Ukraine ayaa noqday labada qof ee ugu mushaarka badan hogaamiyaasha caalamka, halka madaxweynaha Shiinahana uu noqday kan ugu mushaarka yar uguna shaqada badan madaxda adduunka. warbixintani ayaa ku bilaabatay boqorka Spain, waa boqor Philipka lixaad oo ka mid ah boqorada loogu jecel yahay qaaradda Yurub, kaasi oo mushaarkiisa bishii lagu sheegay $21,000 Mareykanka ah. markii isbarbarig lagu sameeyana mushaarka boqorada Ingiriiska xitaa uma dhigma inta ay saacadii qaadato. madaxweynaha Shiinaha ayaa isna noqday madaxweynaha ugu mushaarka yar dhammaan madaxweynayaasha adduunka. sida warbixinta ay sheegtayna waxa uu mushaar ahaan bishii u qaataa lacag gaaraysa $722 oo kaliya. sida aynu ka warqabno, dalka Shiinaha waa wadanka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, waana kan ugu dadka badan adduunka oo dhan. haddana madaxweynaha dalkaasi waa kan ugu mushaarka hooseeya dhammaan madaxweynayaasha dunida. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, oo isagana ka mid ah hogaamiyaasha horumarka weyn gaarsiiyay dalalkooda, ayaa mushaar ahaan bishii waxa uu qaataa lacag u dhiganta wax ka yar mushaarka maalintii uu qaataa madaxweynaha Ukraine. waxauna mushaar ahaan Vladimir Putin bishii u qaataa lacag gaaraysa $10,676. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, oo dalkiisa lagu tiriyo kan ugu quwadda weyn dunida ahna kan ugu dhaqaalaha sarreeya, ayaa mushaarkiisa waxaa bishii lagu sheegay inuu gaaraya $32,916. qiyaas ahaan mushaarka madaxweynaha Mareykanka ayaa ka yar inta uu maalin iyo bar ku shaqeeya madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko. waxaa kale oo 32 jeer ku laabmaa mushaarka madaxweynaha Shiinaha. sidoo kale waxa uu 3 jeer ka badan yahay mushaarka dhigiisa dalkaasi Ruushka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan, oo lagu tiriyo maskaxda dejisay dhabaha horumarinta dhaqaalaha dalkiisa, kana mid ah hogaamiyaasha ugu saameynta badan dunida, ayaa mushaarkiisa bilaha ah waxaa lagu sheegay $12,982 oo kaliya. qiyaas ahaan mushaarka madaxweynaha Turkiga waxa uu 40 jeer ka yar yahay kan uu qaato dhigiisa Ukraine, waxa uuna 3 laab ka mushaar hooseeya inta uu qaata madaxweynaha Mareykanka. sidoo kale 12 jeer ayuu ka badan yahay inta uu qaato madaxweynaha dalkaasi Shiinaha. ra'iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka Angela Merkel, oo ka mid ah hogaamiyaasha ugu saameynta badan wadamada midowga Yurub, ayaa waxa ay bishii mushaar ahaan u qaadataa $26,100. waxa ayna ka mushaar badan tahay marka la isku daro lacagaha ay qaataan madaxweynaha Ruushka iyo kan Turkiga. laakiin marka loo eego madaxweynaha Ukraine, waxa uu ku noqonayaa inta uu 2 maalmood ka yar ku shaqeeyo, ama 35 jeer ayuu ka mushaar badan yahay madaxweynaha Ukraine. madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko, oo dalkiisa uu ka mid yahay kuwa ugu dhaqaalaha liita dunida, isla markaana qalalaasa siyaasadeed la baaxadagaya, ayaa noqday madaxweynaha ugu mushaarka badan dunida. sida warbixinta ay xustay, madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu bil walba u xaadiraa inuu qaato lacag cadadkeedu uu gaaraya $540,651. madaxweynaha Ukraine ayaa talada dalkaasi ku yimid kacdoon shacab oo talada dalkaasi loogu turay hogaamiyihii isaga ka horreeyay dabayaqadii sanadkii 2014. waxaana qaybo badan oo ka mid ah dalkiisa hadda gacanta ku haya kooxo mucaarad ah oo gacansaar la leh dalka Ruushka. siyaasad ahaanna waxaa dalka Ukraine lagu tiriyaa wadamada ugu hooseeya furfurnaanta iyo xiriirka dawliga ah. haddana madaxweynaha dalkaasi waxa uu noqonayaa madaxweynaha ugu mushaarka badan dhammaan hogaamiyaasha caalamka.